الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. runtii anaa isugu yeedhay maanta saxaafadda sidii ballanku ahaa markii aan Istanbul joogay warkii aan soo diray ahaa markaan imaadaaban faahfaahin doona shirkii aan ka qayb galay aan u tagay meesha iyo natiijadiisii baan rabaa inaan ka hadlo iyo qodobo kale oo runtii ku saabsan hawshii aan hayay iyo la shaqayntii madaxweynaha. ugu horeyn haddii aan ka warbixiyo shirkii Istanbul aan u tagnay dhowr iyo 11 xubnood baan ahayn oo anigu aan ahaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga kuna hogaaminayay wafdiga. shirka waxaa qabanqaabiyey hay-ad ganacsiga iyo cilaaqaadka caamka u qaabilsan dowladda Turkiga oo DEC la yiraahdo marka la soo gaabiyo. waxaan ila soo xiriiray rugta ganacsiga ee Somaliland. rugta ganacsiga ee Somalilandna waxay ka dalbadeen tiro ka soo qayb galaysa shirkaas. arrimaha lagaga hadlayaan wuxuu noqonayaa arrimo ganacsi iyo shirkadaha dowladda Turkiga oo raba inay maal gashadaan, kuwaas oo runtii u diyaara inay investment xoog leh bixiyaan. taasna ay tahay waajib inay ka soo qayb galaan ganacsatada Somaliland si ay dalahooda iyagoo magaca dalkooda iyo dadkoodaba ku hadlaya kuna sharfan inay ku tagaan meesha kagana qayb galaan ayaanu ku tagnay. guddigii qabanqaabada markii aanu meeshii gaadhnay oo halkana qusulka joogaa nagu siiyey runtii fiisada oo aan sidaa ku tagnay. markii aanu meeshii tagnay markii aanu la kulanay qabanqaabadii waxaanu weydiisanay in ay noo keenaan ajandaha shirka. markii ay ajandihii shirka noo keeneen iyadoo ay halkaa goobjoog ka ahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland, iyagu siday doonaan isu kala gurguraan, annaga Soomaaliya noo ahaayeen, annaguna Somaliland baanu ahayn, iyo qolo ganacsato ah oo ka socotay dowladda Djibouti. markii ajandihii noo dhiibeen waxaanu ka akhrinay meeshii inaan Somaliland haba yaraatee ka muuqan. Somaliland haba yaraatee in ajandaha ka muuqan waxna ku lahayn. arrintu khusaysa Soomaaliya iyo meesha la yiraahdo dowladda Turkiga. halkaa markay marayso oo shirkii weynaa markaa 10kii subaxnimo ahayd markaanu qabanqaabada sunimi oo shirkii weynaa u dhici lahaa oo bilaabi lahaa 3dii galabnimo ayaanu halkaa markay marayso ka hadalay aniga iyo raggii la socdayba. waanaanu ka asxaabanay, waanaanu sheegnay in annaga halkan waxba noo ool, waanaanu ka baxnay. sidaasaan kaga qayb gelin shirkii oo bilaabmay gelinkii dambe, annaguna gelinkii horeanu ka baxnay. goobtii runtii TV-ga Kalsan baan kala kulmanay, aniga iyo xubno kaleba shir jalaayid baanu ku qabanay, waan ka warranay. saxaafaddana waan la soo hadlay, wixii dhacayna waan ka soo sheegay. dabeedna sidaasaanu shirkii kaga gaabsannay. danaha yaga ayaanu markaa ku foofnay. nin caafimaad u taga oo dhakhtar soo doonto iyo nin ganacsigiisa kala gala iyo nin shirkado oo la balansana u tagaba. raggii intayadii soo noqotay haddaan idinka magacaabo wax oo ka xaqiijin kartaan oo wareysan kartaan oo weydiin kartaan. waxaa ka mid ahaa injineer Cabdi Cali Barkad oo ka socday shirkadda Kiise Shukri oo ka socday shirkadda la yiraahdo muxuu ahaayeen Daryeel. waxaa ku jiray nin Buux la yiraahdo oo reer Boorama ah oo isaguna ka socday shirkadda raashinka keentay Sabawanaag. nin Muuse Toob la yiraahdo isaguna raggan raashinka keena ah. intayadaasi intii haddeerta soo noqotay baanay iyo rag danahooda imika u maqan oo hawlahoodii shirkadaha la balansayn la jooga. intayadaasiba goobjoog baanu ka ahayn, waanaanu ka wada baxnay, waanaanu wada qabanay shirka. markii halkaanu joognay waanu isku raacsanayn arrintaas. sidaasaanu kaga soo baxnay. nasiib darro halkan waxaan ugu yimi in warbaahinta qaar ay qoreen inaan shirkaa ka qayb galay sawirro shir hore oo ka dhacay dowladda Djibouti oo runtii sanad guuradii 100aad inay 2014 ahayd baan filayaa bilowgiisii ama 13 dabiiqadiisii. sanad guuradii 100aad rugtooda ganacsigu ay isku casubeen, caalamka oo dhan ku casubeen, annagana nagu casubeen oo la ka qayb galay. sawirana way soo qaateen. taas ayaa
ka xoog roonaatay warbixintayadii iyo hawshiiba dee maalin walbana way ka qoraan madaxda saakaba Muuse Biixi waxaa ku qornayd inuu Xasan Sheekh wadahadal ugu socday waliba Xasan Sheekh isagu ku gacan seeray oo xidhay ayaa saakaba qornayd marka arrintaasna dee waa iska aniga layga qoray waxay ahayd mid aan waxba ka jirin runtiina intaasay ahayd waana ku qanacsanahay xilka uu madaxweynuhu iga qaaday oo waa runtii waxa weeye waa meerto waa wax muxuu ahaa dee sullaha dowladnimo ka mid ah kuwa iga horeeyey kuwa iga dambeeyey way soo mareen taasi wax problem aha laakiin shakhsiyadda iyo integrity-ga dowladnimo ee aynu ku soo halganay oo aan u soo joogay ilaa maalintii 1991kii guddigii qabanqaabada aan ka mid ahaa 15 qof ee dib u soo noqoshada Soomaaliland aan ka mid ahaa in maanta lagu tilmaamo inaan waddo ka leexsan maray ayaan ka jawaabayaa oo aan muhiimadda ugu badan ee aan shirka kan u qabtay ka yahay taasi waa intaas waxaan u yargelayaa wada shaqayntii anigii madaxweynaha oo aan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayo oo kula han weynahay labada goorbana sidaan hore ugu sheegay magacaabista iyo xilka qaadistaba aan u mahad celinayo kuna faraxsanahay inaan la soo shaqeeyo dowladnimada intaa uu xilka hayeyna iyo intuu mucaaridka ahaaba raggii ka tegay iyo ragga la joogaaba mid waliba guushiisa iyo dhaliishiisaba ninba inuu ku leeyahay badii waa la leeyahay taana dadkaasumaan ka mid ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan runtii madaxweynahana si niyad-sami leh ugu xasuusin lahaa waxaan ka mid ahaa wafdigii u dambeeyey ee u raacay Burco ee kala soo shaqeeyay dhinaca nabadgelyada iyo maamulkaba howlihii aanu soo qabanay waxaa ka mid ahayd inuu igu magacaabo oo igu daro guddi arrin xasaasi ah oo ka taagnayd Baldiiriye oo guddida igu daro runtii intii aan wali isu iman bay hawlo kala soo kordheen wali arrintii waa taagan tahay taana waxaan ka codsan lahaa si niyad-sami leh xubintiina buuxiyo aan ku jiray guddidaas hawshaana maadaama xilli doorasho aynu ku jirno in si degdeg loo galo oo hawshaana wax laga qabtana waan madaxweynaha xasuusintaana waan fari lahaa intii kale oo dhanna waan uga mahad celinaya wada shaqayntii iyo khibradii badneed aan ka faa'iideysanayba aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay taana intaasaan kaga baxayaa waxaan ku soo ururinayaa xil wareejintii insha Allah oo idana qaban doono saakaba bilaabay salaasa ama arbacaan soo gabagabayn doono taana intaasaan ka sii sheegaya haddii la yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsantiin ixtiraamkaas sameeyeen ay la soo qayb gasheen daatiin saxaafadda waa mahadsantiin haddii anigu su'aasha ugu horeysa aan ku weydiiyo wax laga qaaday xilkii gudoomiyaha hay'adda NDC su'aasha koobaad waxay tahay maxaa laga qaaday oo aanaynasan tayada labaadna waxay tahay xisbigii kulmiye miyaad ku soo jiraysaa mise waad ka baxaysaa waa su'aal muhiim ah runtii xilka waxaa cad in lagaga qaaday inaan ka qayb galay shirkaas waana ii soo sheegeen madaxda dowladda ku jirtaa waxa difaacay iyo oo ilaa ninkaas hawsha ma gelinayo wax ku raacaba way ii soo sheegeen marka nin wadadaas ka leexday oo shir dowladda Soomaaliland aan raalli ka ahayn ka qayb galay baa xilka loo sameeyay lagaga qaaday kulmiye xubin ka mid baan ahaa runtii golaha dhexda waan ku jiray xubinimadiina waan ku jiraa masabkaasna weli cidina igaba qaadin hawshiina waan hayaa laakiin mustaqbalkayga siyaasiga ah runtii markaan xilkana wareejiyo waxoogaa aan dib isugu noqdo ayaan isagana sheegi doonaa bal halkaan u arki doono inay danka iyo dantaba dal u tahay ayaan soran karo waad ka qayb qaadan kartaa insha Allah